dabaylaha xagaagiyo ka bobinaye wallaahi haddaad inimu arki waayo waa iska daynaya alla booliska aan saaka arkay maxaa qurux ka muuqatay booliska saaka aan ku arkay magaalada gaalkacyo maxaa qurux ka muuqatay ilaa meeshu dawlad bay u baahnayd war meeshu dawlad bay u baahnayd wax walba maanta waa noo hagaageen al-shaydaan waa ka adkaanay boolis qurux badan waxa goorma igu dambeysay boolis noocaas boolis noocaasa goorma igu dambeysay booliska maanta aan ku arkay magaalada gaalkacyo waxaan tagay qaybtii booliska magaalada gaalkacyo taliyihii booliska puntland taliyihii qaybta booliska gobolka mudug saasaa loo safay ciidankii waxaad moodaa ciidamada la yidhaahdo maraykanka maxaa maraykanka qurunkaas aan u aadaa afkay u baraba waxaad moodaa ciidamadii dalka soomaaliya hore booliskii hore oo kale saasay inta u safnaadeen korneylka gaashaanla dhexe gaashaanla sare waa korneyl gaashaanla sare kabtanka korneyl kabtanku waa ka ugu qurux badanba maxaa maanta ciidan ka buuxay meesha ciidankii booliiska rasmiga oo la yaqaanay qurux iyo karaamo iyo cizi haddii ciidan boolis lagu yaqaanay maanta gaalkacyuu ku sugan yahay maanta magaalada gaalkacyuu ku sugan yahay waa dhooban yahay ciidanku afkaasuu meesha ka hayaa waa ciidan iska tira batay ma aqaan maanta amaradii ugu dambeeya shoo la siinayo kooxda al-shaydaan ay ku soo qaban lahaayeen xoogaa iyo xagga haddaa u dhaqaaqdidna madaxweynihii baa fadhiya oo shalayto isaga iyo rag iska batay oo la socday iyo gabdho iyo wafdi tiro badan uu hoggaaminayey qada sharaf quruxdeeda la yaabay hilibka geela caanaha geela maxaan ku idhaha oo karuurka dhayda maxaan ku idhaahdaa shaaha caddayskaadoo caleenta adag leh maxaan ku idhahdaa baruurta hilibka maxaan ku idhahda war wax la tiri kara maaha qudaartii nooc walba le oo aan haddana meel kale laga keenay gobolka mudug magaalada gaalkacyo qudaartii ka baxday baa lagu casumay halkaasaa lagu casumay maanta shalayta waa meesha la yidhaahdo waa meel mar wax lagu tilmaami kara ma ahayn meesha shalay lagu casumay yacni dhagaxya caddaa la yidhaahdaa amiirka aniga amiirkeyga markaan leeyahay waa beesha reer khalaf ilaa anigu dhinacna reer khalaf baan ka ahay dhinacna yaa naga daaya cayaarta ballimuslaan ka ahay baa casumaad u sameeyey shalayta meeshaas qurux baa ka dhacday maasha allah ummaddii oo dhan baa isugu timid gaalkacya waxay u baahnayd dawlad bay u baahnayd dawladdii ay u baahnaydna maanta way heshay waxaan u malaynayaa markaa waa nabsi bax wax badan baanu indhaha halkaa u taagano aanu lahayn waryaa garowa nabadda haysta fiicana ilaaha u siyaad war boosaaso nabadda haysataa fiicana ilaaha u siyaad war qardha nabadda haysto ilaaha u siyaad war sanaag nabadda ilaaha u siyaad sool nabadda ilaaha u siyaad cid walba saas aanu lahayn laakiin maanta gobolka mudug nabaddii ilaahay waa u siyaadiye ciidamadii oo dhan baa jooga booliskii baa jooga wax walba meeshaana isugu yimaadeen maantay nabad baa gaalkacyo ka dhacday kooxdii al-shaydaan ahayd dadkii iyagoo dhexda wada xihan tahay kul nin walba dhexdooda soo xirtay waadhood waxaanu ahayn ma taqaaneen waxaanu ahayn macawse xunxuno ayaanu xihan jirnay intii dagaalka aan wadnay aniga iyo muumin iyo guddoomiyii gobolka hadda lagu soo biiray dhexresha naga soo harto wakaas aniga hataa dhexdaa ii xihan wallaahi bilaahi tallaahi wakaasa dhexdaa ii xihan kulligaya saasaanu bilown ilaa nabadda haddaad heshid nabadda waa inaad muujisaa nabadda waa inaad ku naalootaa ma garanaysaa nabadda waa inaad ku naalootaa nabadda waa inaad dee ilaali adugu nabadda waa inaad ku naalootaa karaamadeeda waa inaad siisaa waa inaad nabadda casuntahay soo dhawaysaa waxay taas markaa heel u noqonaysaa dadka gobolka mudug jooga waxay heel u noqonaysaa ciidanka booliiska oo habeen iyo maalin galab casar maqrib iyo cishad ee magaranaysaa gaaf wareegaya nabadda ka shaqaynaya aad iyo aad ayaan u soo dhaweynaynaa nabaddaasna waa mid okay waa u imanayaa nabaddaasi waa halkaasay ku hayaan nabadoon dad baa ku sugaya igu hayaan nabadoon haddee miyaa laga maarmaya nabadoonka dad baa ku sugaya leeyihiin horta saakay nabadda magaalada gaalkacyo 100% weeye wax isdhaqaajin karaa ma jiraan
waxaan maqli jiray sharkii baa la maxay ahaysi shaydaankii baa la xijaabay baan maqalay sharkiisi baa la shakaalay baan maqalay shuba hadda shuba shuba hadda shuba shuushow bax alshaydaanay bax baan hadda leenahay nacalad baad ka dhashay alshaydaanay bax halkaasaa maanta gaalkacyo maraysa nabaddii waa la adkeeyey arrintaas aad iyo aad baan ugu faraxsannahay dadka reer mudugga ah oo qurbaha jooga lacagahooda meelo kale ku dhisan jirayow maanta booska ku yaalla magaalada gaalkacyo 20 wuxuu marayaa $60,000 buu marayaa dhowr bilood ka horna wuxuu marayay 3,000 iyo 5,000 iyo 4,000 buu marayaa maantana 50,000 hal boos idinka gadi mayno ilaa markii hore naga diiday inaad nala shaqaysataan boos 10 kiimitir idinka gadi mayno xataa annaga iska degayna annaga ku raaxaysanayna ilaa idinku fulayin baa waa cararteena kii lacag soo qaataba wuxuu la aadayay lacagta meel kale la aadayay halkaasuu la aadayay idinka yeeli mayno boos idinka gadan mayno haddeer buu idin jeednaa weligii kuwa halkaas soo fadhiya qaar baa qurba jooga alla maxaa meelaha aan ogahay qaar ka soo muuqda laakiin farta ku fiiqi mayo dhulkii waa noo nabadoobay barwaaqo iyo khayr baanu helay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin taas waa lagu guulaystay taas waxaan intaa uga baxayaa nabadda gaalkacyo ilaahay ha ka dhiga mid sii jirta taliyaha iyaga booliiska muumin ilaahay cimrigiisa ha dheereeyo iyo sharaf iyo cizi iyo karaamay mutaysteen ilaahay ha u siyaadiyo taas waa taas qodobka kale oo aan la hoyan waayo la harsan waayey oo ilaa iyo daraad qalbigayga gubayey waxaa weeye gabadha cayuun la yidhaahdo caynuuni may ahay oo facebookga lala wareegayo oo dadka commentiga ay ku doonaya sharaftii gabadha ay ku cayaarayaan gabadhaas waa loo gafay gabadhaas sharafteedii baa lagu tuntay gabadhaas waa la ceebaynayaa gabar quruxleey weeye ceeb ma geydo hooyo Soomaaliyeed weeye walaashiin weeye mar waxa weeye waa idin dhashay sharafta ay leeyihiin anigoo day dumarka weligay waa ciseeyaa oo waa daafaca oo waa u qareema sababtu waxa weeye hooyo macaankeeda markaan arko sida ay caruurteeda u kolkoolinayso sida ay u xanaanaynayso baan anigu aad u qaracmaa markaasaan xusuus galaa waayo weligay anigu hooyaday ma arag laba indhood hooyaday ma saarin 45 beri baan jiray markii hooyaday ay dhimatay ilaahu ku naxariiso hooyaday cadar faarax geelle ilaahu jannada ka waraabi marka qofka maanta isagoo hooyo macaankeeda soo arkay gabar Soomaaliyeed caadaya comment ku raadinaya live ku soo gelaya kaas waa mid karaamadii ka dhimatay weeye gabadhaas falka lagu sameeyay fal run ama ah waa been weeye nin maxshooda baa sawir been inta soo qaatay video been oo indhaha yaa iskale ma gabar indhaha cadayn baa jirta ma midaan ilka casayn baa jirta buu inta soo qaatay magaceedii adeegsaday wuxuu yiri gabadhaas weeye gabadhaas saas cadaabti alla ku gabeen low tuuga baata waxaas iyaga ka sii daran kuwa u qaba inay u hiilinayaan oo hadda Facebook inta magac kale ku soo qortaa magaceeda ku soo qoradhaya iyadoo leh walaal raali gelin baan bixinaya Soomaaliya khaladkaas waa iga dhac ku haya waa kadaa'ibin been weeye khalad gabadha ka dhacay ma jiro gabadhaas yaan loo gafin hooyo Soomaaliyeed weeye haddaysan hadda hooyo ahayna mar dhow way noqonaysaa markii la guursado oo ilmo dhasho bay hooyo Soomaaliyeed noqonaysaa laakiin mar walba iska hooyo gabadha laga daayo darada iyo ceebaynta lama aqoon Soomaalidu inay gabdhaha ku cayaarto inay gabdhaha sharaftooda ku cayaarto anu gabadhaas ismaana aqoon xog badan baan ka helay waan raadiyay waa baaray wariyo waa jaajuus waxaan soo ogaaday gabadhaas nin uu cilqabay goortay wax alla wixii uu yiri ka diiday inuu maxaan ku yiraahdaa uu daradaas la maagay si kale uu gabadha u ceebayeen uu garan waayay laakiin waxba ma uu ceebayna isaga is ceebayay way qof xan maxaa xaq aadana xaq ilaahay ka nabada xan aadana waxba kaba dhinta baa la yiri marka mawduucayga maanta intaas kaliya baan rabaa inaan kaga hadlo gaalkacyo ha guulaysato ummadda Soomaaliyeed meel joogto ha guulaysato Puntland iyadu 7,000 oo jeer ha guulaysato mudugna 5,000 oo jeer iyadu 500,000 oo jeer iyadu ha guulaysato aad baan u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ina kala kaxeeyo